xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna xariig jirayay hoteelka cusub ee Hanaan Guest House ayaa lagu qabtay degmada Doolow Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha koowaad 2022 waxaa xafladda ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimada, ganacsatada, oday dhaqameedyada, ururada haweenka iyo dhalinyarada iyagoo si buuxda u soo dhaweeyay horumarka ay degmada ku tallaabsatay. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoon Shiro Dhallahow Nuur oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Gedo isagoo kula dardaarmay ganacsatada kale inay sidan si la mid ah uga shaqeeyaan horumarka deegaankooda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Maanta oo taariikhdu tahay 11 bisha koowaad 2022 waxaan xariga ka jirnay oo furnay hoteelka Hanaan Guest House. waan ku faraxsanahay odayaasha dhaqanka culimada odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada waxaan si fiican u furnay hoteelkaas. waxaan ka codsanaynaa in lagu soo dhiirado, la imaado, la seexdo oo mataqaanaa lagu dhaqmo. midda kaleeto waxa weeye ganacsatada waxaan ka codsanaynaa hoteelkan oo kale inay ka dhisaan magaalada oo ay ku dhiiradaan oo ay mataqaanaa ay xoolahooda geliyaan. tan kaleeto waa u ducaynaynaa in ilaahay hoteelka barakeeyo, wixii mataqaanaa galayna alla ka soo celiyo, dadka dhisayna ilaahay barakeeyo. waa u ducaynaynaa, waa soo dhawaynaynaa. soo dhawaada, ku soo xirma dadkow. intaasaan leenahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaah. alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaan xarig jaraynaa hoteel Hanaan oo ku yaala degmada Doolow. hoteel qiimo badan, sharaf leh, anfacahayo bulshadanada, deegaankanaga iyo dadnimadanadaba. waxaan u sheegayaa dunida daafaheeda iyo dalka gudihiisaba in ay ku soo dhawaadaan hoteel Hanaan. waxaa galay qarash badan insha Allah biinillaahi kariim. anigana waxaan ugu ducaynaynaa dhammaan xafladda dadka ka soo qayb galay iyo inta maqlaysaba in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyo hoteel Hanaan oo intii ku rafaaday oo qarashka badan gelisay annagana magaca noo soo jiiday in Ilaahay ka faa'iidsiyo. Allah barakeeyo hoteel Hanaan. alxamdulilah rabbil caalamiin wal-caaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana illaa calaa zaalimiin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إلهي ومحدث كله إلهي ينوسو كل مية هوتيل حنان عاوة وبشرو أي تهي كوية طبعاً كي بشي كوباد. إلهي بنبكنيي أيام محدث كله حان سود ويننا فرنين كلا فري iyo inaan ka soo qayb galnay labadaba soo dhaweynayna. waxaan u ducaynaynaa intii ka sameysay degmada ayadoo baahi weyn loo qabay oo degmadu ay baahi weyn u qabtay hoteelnimadiisa iyo bilicdiisa meel kasta baahi weyn loo qabay. waan soo dhaweynaynaa. ilaahay baa mahad iska leh. waxaan leenahay ha ku soo dhawaadeen inta kale oo Soomaali ah ha ku soo dhawaato. ciddii dhistayna ilaahay wax faa'iido leh oo baraka leh ha ka siiso. annaguna waan u ducaynaynaa. billahi tawfiiq wa salaam alaykum barakaatuh. mahad iska leh. halkan iskugu keenay waxaa waaye hoteelkan waa hotel in badan la sugayay, loo baahna, loo dhib qabay, dadka dhisayna laga sugayay xilliga ay furayaan. waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay wax baraka la ka siiyo, annagana nagu manfacaadiyo. inta maqan ee dalkan u maqan inay ku daydaan oo dhistaan ma ka rajaynaya. inta ganacsatada ana inay ayakana dhisaan wadankan dadkoodii wuxuu ku maqan yahay daafaha dunida caalamka meesha jirto. inay ku daydaan oo dhulkooda dhistaan oo dhiirigeliyaan ganacsato jaalidaha dibadda ku jiro ayaan ilaahay uga baryayaa. bisha tahay 11 bishii koowaad oo aan furayno hoteelkii Hanaan Hotel. hoteelkan waa qiimo badan ayuu magaalada ugu fadhiyaa. wuxuuna ka kooban yahay qaybo badan. waa meelihii ay maaragtay degmada Doolow ay uga baahnayd chief cunno qaybo badan buu ka kooban yahay. ganacsatadii ama gabadhii ganacsatada ahayd oo hoteelkan aliftay oo soo saartayna Doolow waxay ku soo kordhisay 50% ganacsigeeda, martideeda iyo meel kasta oo looga baahay bixi karo. hoteelkan caawa aan soo dhaweynayno waxaanu leenahay kii lagu nasto
dadkii dhistay ay ku raystaan ay mahadiyaan kuwa kalena laga dhisay inuu noqdo caawaytana loo duceeyo oo loogu duceeyo dadka ganacsatada dhistay inay maaragtay ay dhaqaalihii ay geliyeen mid durbo u soo celiyo. marka haddii la yiraahdo caawa aan xarag jarayno hoteelka Hanaan Guest House waanu loo duceynayaa. bismillah assalaamu calaykum mudane imar weyn waa in salaamay salaam bacdigeeda meeshaan caawa waxaan isugu imaan ilaahay baa mahad leh waxaan isugu nimaanay xalfadan sharafta badan ee lagu furaayo lagu daahfuraayo hoteelka Hanaan Guest House. waxaan rajaynaynaa insha Allah dadkii dhistay inuu ay ku guuleystaan kii lagu manaafacaado inuu ilaahay ka dhigo oo dadka ganacsatada waxaan ugu sii maartay aan u sheegaynaa sidaan oo kale magaalada horumarkeedii iyo qiimaheedii magaalo horumartay inay noqotay oo meel kasta wixii meelaha loo aadi jiray in hadda meeshaan aan ka helno. awal meelaha waxa u aadi jirin hotel maan lahaan jirin meel xalfada lagu dhiso maxaadarooyinka meel lagu dhigto maan lahaan jirin hadeertaan waa helnay waa noo soo maartay waa noo si fiican loogu agaasimay. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha soo ajiibay codsiga kana soo qaybgalay munaasabadan lagu daafurayay hoteelka Hanaan Guest House. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo halkaan uga mahad celiyo milkiilayaasha dhistay Hanaan Guest House ganacsatada. runtii waxaa la dhihi karaa waa ganacsato wax badan soo kordhiyey waa ganacsato bilicda magaalada ka qayb qaatay aadna u bedelay bilicda magaalada quruxda halka uu ku yaalo goobta uu ku yaalo iyo siduu u dhisan yahay u habaysan yahay qolalka VIP-da ah iyo nidaamka uu dhisan yahay waa wax badan lagu faano laguna soo hirto. waan bogaadinayaa ganacsatada kale iyagana degmada degan inay dhisaan hoteelkan oo kale kanoo kale iyo ku kale inay dhisaan la sii badiyo. magaaladu way weyn tahay magaaladu way bilicdeedu way wanaagtay intii hore la ekayd lama eko. magaaladu waa magaalo weyn waa magaalo magac weyn waa magaalo mugle dowlad Soomaali baa la dhahaa. magacii dowlad waxa u dheer magacii Soomaaliyeed bay xambaarsan tahay. waxaa loo baahan yahay ganacsatada inay ka dhigaan doolow lagu soo hirto lagu faano inay ka dhigaan ganacsatada. taas waa taas. waxaa kaloo rabaa dadka qurbaha jiro oo u dhashay deegaankan inay bilicda magaalada ku soo kordhiyaan hoteelkan oo kale ay ku soo kordhiyaan. dadka magaalada deganna waxaan leeyahay dee hoteelkan waa la furay qaybo badan uu ka kooban yahay maqaaxid buu leeyahay VIP-a cafeteria uu leeyahay waxyaabo badan buu iskugu jiraa inay iyagana kusoo dhawaadaan hoteelkan ay kusoo hirtaan. waxaad keensan kartaa martidaada. waxaa kaloo ka furan supermarket qaybta hoose qaybaha dhexe waa VIP qaybta sare waa VIP. waxaa waaye hotel aad arki doontaan cid kasta oo imaado oo degmadan imaadana insha allahu tacaala waan kusoo dhaweyn doonaa waana ka qayb qaadanaynaa. doorkanaga dhalinyaro iyo doorkanaga shacab iyo doorkanaga dadweyne ee degmadana aad baan usoo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa waana bogaadinaynaa dhammaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan caawa meesha u joognaa oo lagu daahfurhayaa mise lagu xarag jarayaa hoteelkan lagu magacaabo Hanaan Guest House. markii aan fikir ahaan ka dhiibto aniga ka dhalinyaro ahaan waa soo dhaweynaya aad u soo dhaweynaya because degmadayda quruxdeeda ay ka mid tahay as dhalinyaro ahaan nowadays waxaa waa dumarka ama dhalinyarada badankooda waxay u badan yihiin meelaha yani quruxda iyo waxyaalahaas loo aad waa soo dhaweynaa inay degmadayda maaragtay maanta ay ka mid noqoto meelaha qaarka u dalxiis tagi jirnay sida caasimadaha inaan aadno oo kaleeto ama kaga faa'iideysan xilliyada ama waqtigaas meelahaas aan jirno waan soo dhaweynaynaa. waxaan halka uga faa'iideysanayaa codkayga inaan gaarsiiyo dadka u dhashay deegaanka iyo kuwa hadda joogaba waa awoodiin dadkeena ganacsatada xitaa hadda inta joogo inaad maaragtay ganacsi nooc walba inaad meesha lagu soo kordhiyo dhismooyinka sidoo kaleeto kan iyo kun labaad iyo kun saddexaad waa rajaynaa insha Allah sanadkan dhexdiisa waa idin salaamayaa dhammaantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دمانتينا dad iga waaweyn oo iga waaya aragsanaa hadlay waa soo dhaweynaynaa hoteelka Hanaan Guest House. waxaan leeyahay anoo ka dhalinyarada u hadlayo wax badan oo de caasimadaha loo aadi jiray baa noola keenay hoolalkii xafladii arooska maasha Allah waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa insha Allah waxyaalo badan oo loo baahanayo soo kordhiyay bilicdeeni ee magaalada. waxaan leeyahay waxaan kaloo fariin u dirayaa dadka maxaa la dhahayo qurbaha ku maqan waxaan leeyahay u soo laabta wadankiini quruxdan iyo qurux ka badan buu rajaynaynaa insha Allah.
bismillaah waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada doolow waxaan kasoo qayb galay xarig jarka hotel xanaan guest house ee lagu xarig jaraya degmada doolow waa ku faraxsanaa hotelkana lagu soo kordhiyey ka horumar ahaan ka bilic ahaan bilicda magaaladu ka mid yahay waxaan rajeynayaa sidoo kaleeto hoteelo sidaan oo kale ah ka qurux badan in magaalada lagu soo kordhiyo ganacsatada iyo dadka qurbo joogta iyo kulli aan ugu baaqaya inay wadankooda dhistaan hotelkan waa hotel si qurux badan loo casriyeeyey qaybta kore waa VIP qaybta dhexe waa normal waaye wuxuu leeyahay maqaayad iyo cafeteria iyo kobashiin wax walbo hoolal aroosyada lagu dhigan karo wuxuu leeyahay qayb supermarket marka waa soo dhaweynaynaa bulshada insha Allah waxaan rajeynaynaa ka qurux badan inaan ugu soo kordhin doono insha Allah. ugu dambeyn waxaa hotelka xariga ka jaray gudoomiyaha ganacsatada degmada Doolow Maxamed Bilow Xuseen. bismillaahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay 11 bishii koowaad 2022 waxaan xarig jaraynaa Xanaan Guest House waa hotelka weynaa oo qiimaha badnaa Xanaan Guest House maanta waan xarig jaraynaa. Assalaamu calaykum.